doorashada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa noqotay mid aad u jiitanta tan iyo markii hawlaheeda la galay oo ay lagu waday inay qabsoonto intii u dhaxaysay sanadkii 2020 ee tagay iyo sanadkan 2021 hase ahaatee dhowr jeer oo la mudeeyay ayaa waxa ay suuro gali weyday in waqtiga loo qabtay ay ku qabsoonto doorashadaas waxaa la sheegay in saameyn weyn ku yeelatay dadka ka qayb gali lahaa ee doonayay inay noqdaan musharaxiinta u taagan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo ka kala yimid deegaano iyo dalal kala duwan oo dibadda ah oo doonayay in ay ka qayb qaataan sanadka doorashada haddaba saameyn intee lag bay ku yeelan lahayd dadka doonayay inay ka qayb galaan doorashadaasi iyo waliba doorashada lafteeda dib u dhaca ku yimi waxaa jira wali khilaaf la arkayo oo ku saabsan arrimaha amniga iyo doorashooyinka oo u dhaxeeya xukuumadda iyo dawladda madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo isla markaana la arko inay door muhiim ah ka qaadanayaan oo ay sii hurinayaan dhinaca mucaaradkuna barnaamijka waxaan qodobadaas ka wareysanayaa maxamed ibraahim rashiid khaliif oo ka faalooda siyaasadda isla markaana isha ku haya arrimahaasi say u socdaan maxamed soo dhawow doorashadan 2021 maxay horta kaga duwan tahay doorashooyinkii hore ee markaad si guud u eegtid doorashooyinkii hore dalka ka qabsoomi jiray bismillaahi rahmaani rahiim nuurdiin aad u mahadsan tahay waxaan kaloo u mahadcelinayaa telefishinka caalamiga ee Nasaarda oo xaqiiqdii adeegyadiisii bulshada u hayay yihiin kuwo tilmaaman aad baan ugu bogaadinayaa marka xigto su'aashaas nuurdiin waa su'aal ballaaran doorashada waddankeenu hadda uguma horreyn iyadoo waddanku uu markaan ka soo baxay gumaysto ka dhuuqay nuxurka iyo nacfiga doorashada galay waa 1956 1959 1969 doorashooyinkaas waxbay common ka ahaayeen oo ay ka sinaayeen dabcan waxaa hogaaminayay awoowayaasheen waddanka aasaasay dowladnimadeena soo gacan qabtay iyagoo dee dad bisil markaa ahaa oo danaha waddanka mar walbaba ay u ahayd udub dhaxaad ay u ahayd iyo daawashadeeda iyo gacansiinteedaba marxalad kala duwan baa la soo maray maanta doorashada waxay kaga duwan tahay doorashadii hore waa doorasho si kale iyadoo weji kale leh si kale loo dhihi karo waa curad oo taariikh bay bilow u tahay haddana gebigeedba ka duwan wixii hore waddanka looga bartay waxay socotaa dabcan 2 sano baa doorasho joogto ah lagu jiraa 2 sano maanta dhacaysa bari bay dhacaysa hubanti la'aan baa ka jirto taasna dee waa arrin aan la dhayalsan karin markay tahay heer qaran oo waa issue aan caadi ahayn khatarteeda leh culeyskeeda leh caqabadeeda leh waxay doorashadan kusoo beegmaysaa xilli ay institutionkeena iyo dowladnimadeenu ay tahay mid cardun ah oo aan ismoodsiin karin waayo dowladnimada nooca hadda aan haysano waa dowladnimo soo kabanayso cidna kama filinayninba qofka caqliga leh inay on time ku dhacdaa marka waa waddanka anagoo dagaalka soo kabanayo nugul la ogyahay aanu wada ognahay awoodaha iyo fursadaha hor yaala aanu wada ognahay marka sidaas guud doorashada waa noocaas doorashada marka doorashadu way daahday saad arkaysid saad sheegaysid sanad iyo dheeraad ama sanad iyo muddo bilaabay la leeyahay bari bay qabsoomaysaa hubanti la'aan wax ku socda toddobaadkan gudahooda ay qabsoomaysaa dad baa doorashada doonaya inay ka qayb galaan oo dunia kale uga yimi oo dabcan dad wax bartay oo aqoon leh oo loona arko inay fursad kale ay tahay in dadkaasi ay ku soo biiraan baarlamaanka oo dalka ay wax ka bedelaan dadkaasi saameynta ay ku yeelanaysaa waa mid sideeyay kula tahay markaan ku leeyahay 2 sano oo toos ah bay socotaa diyaar garowgeeda oon la hubin micnaheedu waxaa weeye waxay caqabad ku tahay culays ku tahay 2 sano oo toos ah laano istiraatiijiyada marka la baranayo waxaa la dhahaa istiraatiijiyada waa in waqti xadidan ay natiijadeeda loogu talagalay ee loo qorsheeyay lagu helaa haddii ay dheeraato waa fashilmaysaa ciidanka haddii ku dheeraadaan furimaha istiraatiijiyada ayadoo istiraatiijiyad leh waa jabayaan marka waxaa la doonayay dowladda in ay 2 dhinac bisayl ka muujiso dowladnimadu waxaa weeye inaad dadkaaga dowladnimada usoo dhaweysaa si ay uga qayb qaataan waxaa hareeraha joogo haddaad maanta aad mas-uul tahay waxaa ku maqlayo waxaa u taliso waa daris kaa caqli badan macallimiin waalidiin ababayaal dhalinyaro marka dadkaas maxay doonayaan marka adiga aa waddanka maamulaysid waxay doonayaan inaad dowladnimada usoo dhaweysid
hab dastuur iyo awoodo sharci ah ay awood sharci ah murqo sharci ah yeeshaan isla markaasna murqaha sharciga ay sameynayaan dhaqaalihii doorashada hal abuuraa jiro si looga baaqsado corruptionka ama musuqa iyo laaluushka si looga baaqsado dowladaha way ka shaqeeyaan waxaas marka waxaa dhacaysa dadkii mujtamaca caadiga ahaa in ay ku dheeraato muddadii isdiyaarinta micnaheedu waxaa weeye muddadaas dheerka murqahay ka dilaysaa waa xagal daacinaysaa garbaduub bay ka dhigaysaa doorashadii waxay noqonaysaa hadhow doorasho elite politics ah dadka nukhbada ah ee tunweynka ah doorasho udhexayso kubad udhexaysa noqonaysaa taasna dimuqraatiyad ma aha marka waxaa weeye arrintaas waxay cuslaynaysaa in mujtamacii caadi ah dowladdii ka mid noqdaan iska badaaba in shuruucdaas iyo constitutionkaas iyo waxaas la dhisay siyaasiyiintu waxay ku heshiiyeenba inay lacago dusha ka saaraan dadkii tartamaya ee muwaadiniinta caadiga ahaa lacago ay ku heshiiyeen qaabka lacagahaas iyo dee kursi qaran inaad jeeb shaksi ah laga bixinayo iyo foolxumadeedaas guud waxaa weeye mujtamaci bay ku adkeynaysaa inay dowladda ka qayb qaataan waana arrin cawaaqibkeeda iska leh kalsoonidana dhaawacdo waxyaalaha kalsoonida dhaawac ay ka mid tahay watay maxamed hadda uunbaa la islahaa doorashadii waa ugu dhowdahay waqtigeedii markii habraacyo kala duwan lasoo saaray marar badan oo isku xigta arrinta laga shiray laakiin iminka lafteeda waxaa muuqata khilaaf dowladda gudaheedii ka muuqda oo amnigii taabanaya khilaafkaa laftiisu doorashada saameyn intay leeg isna ku yeelanaya waa jirtaa habraacyo lagu heshiiyey oo waxaa la dhihi karaa habraaca wuxuu kasoo bilowday dee guddigii 2017 ay dowladdu u saartay inay ka shaqeeyaan hanaan doorasho kaas uu muuqday in natiijo qurxan laga gaaray sida laga soo xigan karo June 2018 shirkii Baydhabo inkastoo waxaas oo dhan haddana lagu qaadacay kadib markay dhacday in dowladdii madaxtooyadii ay galaangal weyn ku yeelatay saameyn maamul goboleedyo muddadii ay xafiiska joogeen ay sameeyeen markaasaa waxaa loo arkay heshiisyadaas in way ka faa'iideysan doonaan amba si qurxan oo qaab siyaasadeed oo dee dan u ah dhinac inay u shaqeynayaan taasaa waxay sababtay in September 2018 Kismaayo lagu fashiliyo habkii la filayay proportional representation wixii lagu magacaabay arrintii lagu magacaabay khilaafyadu way soo socdeen guddigii waxaa ka mid ahaa baarlamaanka loo saaray guddigii baarlamaanka ayagana dee guddigii waxay sameeyeen in ay dhaheen arrintan 4.5 bay lid ku tahay xaqiiqdiina dee waxaa rabay dowladda inay waddanka ka saarto 4.5 waajib bay ku lahayd arrimihii waajibaadka ku ahaa buu ahaa arrimahan hadda la soo gaaray heshiisyada in laga gaaray loo maleynayay iyo khilaafaadkan hadda soo baxay si haddii la dhaho ra'yi caamka ay u malaynayaan arrin amni inay tahay laakiin ay tahay siyaasiyiin biyaha hoostooda iska arkay arrimahaas oo dhan waa khilaaf si kale ku tilmaaman dana shakhsi ah taasoo ayaan daro ah dana shakhsi ah ku tilmaaman marka doorashada dib u dhac kale ma ku keeni kartaa mise waxa dhici karta doorashada inay socoto iyadoo arrimaha la isku diidan yahay wali taagan yihiin doorashada dib dhac uu ku imaan karaa waana wax laga baqay weeye haddii hab dhaqanka cid kasta aysan bedelin mucaaradku uusan bedelin madaxtooyada aanay bedelin dowladda aanay bedelin waxaa xusid mudan dee anigu political scientistiga waxay fiiriyaan hadallada iyo normiska la sheegayo farmaajo roger wuxuu sheegay in uu tanaasul sameeyey haddii tanaasulna hadda mowqif marka loo baahan yahay haddaad tanaasul samayso arrin oo maaragtay gadmaysa ma ahan si kale haddaan u eegno waxaa weeye waxaa loo baahan yahay mowqif waayo aniga markaa adiga madax tahay waddankaagama tanaasuli karin goraanka iskula jirnaa inaan wax walba kala goosano wey marka arrimahan waxay sameyn karaan maaragtay dib dhac dee wadahadaladii horeetana wadahadalla sax ahaa oo guul muujinaya ma ahayn dee waa arrintii cabdullaahi timcadde markuu gabayay uu lahaa mudaahanada beenta ah kuwii nagu maqaar saaray wadahadal ma ahayn kaas wadahadal rasmi ah in laiskugu yimaado weeye miiska wadahadalka lagu soo laabto calool adeeg la yeesho maaragtay dib dhaca saasaa looga baaqsan karaa watay khilaafkan hadda jira sidee loo soo ururin karaa oo looga bixi karaa dabcan khilaafkan ee dowladda gudaheeda ka jirtay arrinta ku saabsan ee sarkaaladii ka tirsanayd ee nabad sugidda ee lala yahay meel ay jirto muranku ka yimi sida arrinta looga bixi karaa iyada oo babka loo xidhi karaa
arrintaas waa arrin si gaar u madax bannaan oo xaqiiqdii ay tahay muwaadiniinta iyo dadka saxaafadda iyo indheergaradka inay si gaar u baaraan waana arrin ka turjumi doonta taariikhda habdhaqankeena dowladeed iyo yaa farageliyey baaritaan ay ra'yu caamku dalbanayeen yaa farageliyey yaa maaragtay jid mariyey oo jid bixiyey yaa jidkiisi daboolay arrintaas waa arrin ka turjumaysa si guud u madax bannaano in la falanqeeyo tahay anigoonan meeshaan ka marnaanayn inaan qoyskoodii aan dareensiiyey in dhibaatadaas ayaan dara ahayd waxaa jiro waxaa weeye marka dhowr talo aniga dee muwaadin ba ahay talo iyo digniin inaan isku daro weye talada digniinta waxaa weeye in laga waantoobo waxaa dowladnimada ka dhigaya wax shaksi ah ka dhigaya dan qaran in laga shaqeeyo tan kaleeto waxaa weeye in mucaaradkii iyo dhinacyada oo dhan ay waddanka u tanaasulaan waddanka miiska iskugu yimaadaan ka wada hadlaan waayo hadda sida muuqato waxay la mid tahay in madaxweynihii dalka waxaa weeye maxaa cabdullaahi weeye maxaa cabdullaahi shaksi ma aha wuxuu leeyahay awoodo dastuuri ah awoodaha dastuuriga ah qof walbay dan u tahay in la isticmaalo laakiin haddii la isticmaali waayo mucaaradkii bay dan u ahayn madaxweynahaas bay dan u ahayn madaxtooyaday dan u ahayn awoodo dastuuri ah weeye maanta resourceka waddanka annaga uu haysto waxaa weeye dastuurkaas ku meel gaarka ah hanti kale ma lihin asagaas inaanu waxaa weeye aan isticmaalno wuxuuna siinayo marka madaxweynaha iyo mucaaradka iyo intay isku yimaadaan in ay tubtii wadaxaajoodka ahayd ay sameeyaan garowsadaan in waddankanagu yahay waddan nugul doorasho waqtigeedana aanu cidna awoodin habdhaqanka qolo kastana habdhaqankeeda ay maaragtay ay bedesho walidaalika awoodahaas dastuuriga in la wada isticmaalo watay ugu dambeyn maxamed maxaad soo jeedin lahayd si doorashadu ugu yaraan ay u qabsoonto inta sanadkan ka hadhay oo bal ay soo dhammaato doorashada baarlamaanka bilahan sanadka ka hadhay waxaan soo jeedinayaa in dib laiskugu yimaado national madaxyada la isku raariciyo qalalahaasaan soo marnay xilligaan oo kaleeto founderskii dadka waddankanaga aasaasay dowladnimadanaga aasaasay aminkaan oo kaleeto aadan cadde allah u naxariisto doctor cabdirasaaq cabdirashiid cabdullaahi kulligood cabdullaahi ciise kulligood aminkaan oo kale waddanka daafiisay socdeen isu soo dhaweyn kala dabqaadis ay raadinayeen mucaaradku waxay u baahan yihiin fursaddaas kale inay abuuraan madaxweynahan waxaa loo baahan yahay in asna habdhaqanka dowladda uu maaragtay uu hogaamiye habdhaqan fiican oo laisku yimaado wadahadal dhab ah iyo heshiis dhab ah in la gaaro doorashada waddankana si wada jir looga shaqeeyo aminkan qolaa saxan qolaa khaldan ma ahan aminkan waa wada shaqayn aminkan tanaasul ma ahan aminkan waxaa waaye talada in laisku qanciyo analysiska iyo falanqaynta laisku qanciyo hadday wada saxan tahay la wada isticmaalo hadday khaldan tahana iskaashi la sameeyo oo saa lagu wada shaqeeyo watay aad ayaad mahadsantahay kaasina waxaa maxamed ibraahim rashiid khaliif oo aan ka wareysanayay mawduucyadan ee siyaasadda ee taagan gaar ahaana doorashooyinka soo jiitamay ee dalka Soomaaliya oo muddooyinkoodii dhowr jeer dib uga dhacay aad baad mahadsantahay maxamed aad baad mahadsantahay